aamusnayd yaa farxii kaba yaroy dhukuroy madax gusay cuqdadaa la aamusnayd ayaa hadda ku soo taataabatay cuqdad aa la aamusnayd oo la xanuunsanayd iyo masayr yaa ayaa ku soo taataabteen yaa hiiliskaa ma ahan xamarna cidaa ka leedahay ma jirto xamar waa la ammaanaa waa la caynaa waa la habaaraa dadkana kama xigtid dayniilaa dameeraha ku raaci jirtay marna kaadidooda ku cabbi jirtay marna ku qubaysan jirtay madax gusay farxii dhukuroy yaa ma maanta baa sharmaboy isu soo qaawisay dhukuro habar loo waayo waa habaar anaa hooyadiisa anaa eedadiisa aabbihiisa la dhalatay anaana kuu jooga dhukuroy dhiiqoy habartii xuntaydoo nin iyo naag waxay tahay aan la kala garanaynin yaa oo kaniisadda ahayday ma waxay kaa geen weysay ilmaha yarirkaa oo aad dhali kartid oo gabadhaada la faca yaa may kaa geen weysay yaa naayaa xamaraajo waxaad joogtaa amerikaa joogtaa labada wiil waa xifaaltamayaan raab bayna isku garaacayaan raabna ma taqaanid fanaanadna ma tiid sidii diiqiya hambaliya daawade fursad ganacsi oo aad dhaqaale aan xad lahayn aad ku samayn karto ma tahay hooyo ama aabe dhaqaalaha soo gala uu yaryahay ma ku fakaraysaa ganacsi ma doonaysaa inaad kor u qaaddo dhaqaalaha ku soo gala oo aad samaysato ilo dhaqaale oo dheeriya balse wakhtigu ma kuu suurtogelin waayey inaad hadda ka hor arrinkaasi aad samayso haddaba maanta waxaan ku haynaa fursad qaaliya iyo nidaam ganacsi kaasi oo aad haddaad horay uga faa'iidaysan kartid isla markaana haddii aad buuxiso labada dhibcood ee u horreeya inaad heli doontid bilowga iyo furaha ganacsiga oo dhaqso ah weliba dhukuroy cuqdadaa la aamusnayd yaa farxii kaba yaroy dhukuroy madax gusay cuqdadaa la aamusnayd ayaa hadda ku soo taataabatay cuqdad aa la aamusnayd oo la xanuunsanayd iyo masayr yaa ayaa ku soo taataabteen yaa hiiliskaa ma ahan xamarna cidaa ka leedahay ma jirto xamar waa la ammaanaa waa la caynaa waa la habaaraa dadkana kama xigtid dayniilaa dameeraha ku raaci jirtay marna kaadidooda ku cabbi jirtay marna ku qubaysan jirtay madax gusay farxii dhukuroy yaa ma maanta baa sharmaboy isu soo qaawisay dhukuro habar loo waayo waa habaar anaa hooyadiisa anaa eedadiisa aabbihiisa la dhalatay anaana kuu jooga dhukuroy dhiiqoy habartii xuntaydoo nin iyo naag waxay tahay aan la kala garanaynin yaa oo kaniisadda ahayday ma waxay kaa geen weysay ilmaha yarirkaa oo aad dhali kartid oo gabadhaada la faca yaa may kaa geen weysay yaa naayaa xamaraajo waxaad joogtaa amerikaa joogtaa labada wiil waa xifaaltamayaan raab bayna isku garaacayaan raabna ma taqaanid fanaanadna ma tiid sidii diiqiya diiqaan kuu bixiyey aniga diiqo farxiyo diiqo aan kuu bixiyey farxiyo diiqo ab iyo sinjina ma lihid ab iyo sinji iyo weji iyo wanaag ma lihid dhukuro kaniisad baa tahay kaniisad habar weyn oo kaniisad ah oo reebaadi ah oo labisku diin ah oo dhinac kasta wuxuu yiri madax gus inta saas loo tiraa guska dameerka oo madaxaaga weegiya madaxaaga guska dameerku weegiya kalabad baa tahay kalabad ay baa tahay aan weji iyo wanaag lahayn ay baa tahay maalboon markaa imaatana waa ogeyd sidii laguugu gurmaday yaa waa ogeyd daarood inuusan kuu kala harinin xataa baatigii yaa lagu yiri ku marsa cilaanka iyo daawada qasqaska iyo baatiyaashii aryaa ii soo aruuri bacyaala ku aruur 5 boorsaa ka qaadato Australia waa ogeyd yaa dhukuro dhiiqo ma maanta ilmihii yarirka oo xifaaltama soo dhex gashay yaa ma maanta soo dhex gashay naayaa ilka cas haddaa u kulushahay uu ilka cas ku diiday ilka casanaag baa haysato yaa waxba ha ugu gagabanin sharmaboy hadalkiisa dhig habaryaa xunta oo kalabadda abaalkana aan lahayn abaalka iyo wejigana aan lahayn dhig maxayd waa ku ogahay ilka casaa rabtaa ilka casa kuma rabo nimca jookaraa haysata agtaada ma imaanayo laguguma sawiraayo ma fahmaysaa
stay away waa kuu sheega aniga ka dheerow shoolada sharma boy sharmaaka shooladiisa ka dheerow dhukuro sharmaake faca ma aha raadse faca markii la dhaawaa meel kasta dalaq daqsi camal waa ku jirtaa meel kasta dalaq yaa farxiyaaba kuu roonayd oo ku tiro orgiyo oo orgiga ma buu dhahaaye aniga waxaan kuu bixiyey diiq baa tahay diiq weliba diiq la ceejiyey oo codkaaga weeg yahay fanaanadna ma tihid fanka waa iska daba dhalijisaa codna ma lihid yaa habar xunoo lesbiyaanana waa tahay yaa habar xune oo waxaa tahay naagaha wasaa naagaha wasaata yaa naa maxaa rabti yaa sharma boy naagtiisaa ku haysataa miya naagtiisaa ku haysataa yaa ma milyuunmaankaa rabtaa inaa xoogtid inaa kufsatid maa rabtaa sharma boy saasaa u cacaynaya miya naa milyuunmaanka waa hooyo sharaf leh kumana rabto noocaagoo kaleetana meel lama istaagto duliyad yahay akhlaaqdaa kaa xune mar dambe yaanan kaa maqlin mar dambe afkaaga adoo ku soo labaaya sharma boy aan kaa maqlay kelabad baa tahay farxiyo gus dameer farxiyo madaxaaga guska dameerka yaa uu egyaa waraa guska dameerka waa aragteen soomaa dameerka markuu kaadinayo alaabta soo rida iyo madaxa farxiyo dhalfada hore ee dameerka iyo madaxa farxiyo soo isumeeka madaxa farxiyo kaba cunto iyo dhalfada dameerka soo isumeeka dhukuro dhulku kulago dhukuro ma waxaa rabtay yaa maxaa laba cunugoo yaryara aryaha xamar oqii wax ka sheega lafaa lagu wasaa naagus dameeraa lagu wasaa xamarna kama imaana daynilaa ka imaatee luuqadda horta soo baro af soomaaliga soo baro si fiican u soo hadal habartaan xunta oo waalan oo habaryartaa ah yaa milyuun dhiiqo ha noolaato waa daarood ha iska caacaytanto milyuun dhiiqo xal baa laga gaari karaa laakiinse adigu xaggee ka timid adi xaggee ka timid naa sharma boy ma afkaaga ku labi kartaa hooyow maxaano alaalaha shalay ku dhegdhegaayo sharma boy ma sharma boya kuu baahan yaa naa masayr baa ka tahay naa heerku gaari weyse naa intaasoo joogta xama maxay Amerika naa meeshuu gaari weyse naa wiilal yaryar oo kaftamaayo oo maxay rap challenge isku samaynaayo habar weyn dalaq maxaa naani miyay aragta anigoo mooha caynaayo miyay aragta indhahaaga ma isaarta mooha waa cunug yar waqtigeeduna ku jiraa sharma boyna waa cunug yar waqtigeeduna ku jiraan naayaa waa yeelka anoo habar yahay aniga ila xifaaltan ee ilmaha yaryarka ka dhex bax laguma dirsanay madax gus dameeray yaa dhukuro ma waxaasaa la aamusnayd ma waxaasaa daacad ku tahay ma waxaasaa soomaalinimo ku tahay naayaa dhegayso yaa sharma boy wuxuu yahay waayahay qabiilkiisa waayahay fanaanna waayahay daarooduu yahay hartiyuu yahay majeerteenuu yahay maxamuud saleybaanuu ka yahay cumar maxamuuduu ka yahay riixisiyuu ka yahay naayaa ma intaasaa ku gubtay laangaabad yahay ma intaasaa ka gubanaysaa laangaabad yahay ab iyo sinji aan lahayn yaa curudka hawiye wuxuu xisaabsan yahay waa ogta 4 xabo quruntay waa ogta yaa midgaan baa tahay naayaa midgaan bas ogtahay ilaaha ka taxadiray sharma boy qabiilkiisana waa yahay wuxuu yahayna waa yahay raabiistana waa yahay fanaanna waa yahay 20 jir hambalyo daawade fursad ganacsi oo aad dhaqaale aan xad lahayn aad ku samayn karto ma tahay hooyo ama aabe dhaqaalaha soo gala uu yar yahay ma ku fakaraysaa ganacsi ma doonaysaa inaad kor u qaaddo dhaqaalaha ku soo gala oo aad samaysato ilo dhaqaale oo dheeriya balse waqtigu ma kuu suurto gelin waayey inaad hadda ka hor arrinkaasi aad samayso haddaba maanta
waxaan ku haynaa fursad qaaliya iyo nidaam ganacsi kaasi oo haddaad horay uga faa'iidaysan kartid isla markaana haddii aad buuxiso labada dhibcood ee u horeeya inaad heli doontid bilowga iyo furaha ganacsiga oo dhaqso ah weliba taasoo ku xidhan sidaad horay go'aan uga qaadato kuna buuxiso labada dhibcood ee u horeeya waa muhiim inaad buuxiso labada dhibcood u horeeya si aad samayso dhaqaale aan xad lahayn bushaarada ah midaan horay u tijaabinay dadkii u horreeyey ee ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah gabadhan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Juwariya oo ku nool UK dalka Ingiriiska oo hadda ka samaysa dhaqaale aan xad lahayn ganacsigan fadlan tijaabi ganacsigan nala yar daawo gabadhan Juwariya oo iyadu ku caana maashay ganacsigan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وجويريا وحان دقناها UK وحان ما شاء الله كمي هاي ولا لها كفائدة استي فرصة دي قالقة هايد ومناشر سعادية حرسي نوصو بندقتي تاسو رنتي ما شاء الله تبارك الله انتيني قوان كقاطي بشي تضبات كسو بيرتي اي ما شاء الله نتشي دفي عن كلا كل مين اناقو تيم كينا لسي ما شاء الله تبارك الله اناقو نلقرب قبطي مناشر سعادية حرسي ودحدا وحرتي يعني قوان كذي وقال بين هاي قف كستون وصو بيري وما شاء الله تبارك الله هير في عن وقاري لها مانتا أنا ما أنت ميل في عم ما شاء الله المريا أدبا نوتش على أونلاين ماركتينج أدبا نوتش على لكن ما شاء الله إلهي بوحي دوري دad wanaagsan iyo company wanaagsan oo runtii aad ugu soo baxaya rabitaankayga marka qof kasto walaalo Soomaaliyeed ma sha Allah tabaaraka Allah waxaan runtii ku boorinayaa in chance laga faa'iideysto way waa chance aad u fiican oo xagga dhaqaale ahaan aad kuugu fiican ayadoo helaysa dad garab ah oo ku garab qabta xagga caafimaad ahaan aad kuugu fiican oo inta taqaanid iyo inta gaari kadib aad ugu fiican marka aad waxaan kugu boorinayaa fursadan qaaliga oo managerada noo soo bandhigtay inaan ka wada faa'iideysano insha Allah aad baan arrintan kugu boorinayaa saan uga faa'iideysanay Forex waxaad ka samayn kartaa dreamkaaga ka rumayn kartaa waxaad ka samayn kartaa dhaqaalaha jeceshahay waxaad ku bedeli kartaa dad yow fara badan oo kugu xiran noloshooda ما شاء الله بارتيغا labaad waxaan kula wadaagi doonaa qayb yar oo history-gayga ku saabsan oo kooban ugu horeyn Zainab waa tuma goorma ay business-ka ku soo biirtay darajadayda kaga jirta shirkadda su'aalahaas insha Allah ka jawaabi doona Zainab waa mid ka mid ah leaderska shirkadda Forefa isla markaasina ku soo biirtay 2 years ka hor alxamdulillah kaga jirta darajada senior manager-ka isla markaasina hadaf keeda u soo martay higsi iyo isla markaasina shaqo adag ay soo qabatay waxaan aaminsanahay inaad ku guuleysan kartid nolosha waxaan aaminsanahay inaad noloshaada ku bedeli kartid Forefa sidaan anigu ugu soo bedelay ma sha Allah sidoo kale waxa xusid mudan in walaasha Zainab tahay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee chief gareysa kaarbaleenka ama gaariga koobada shirkadda Forefa laga helo adiga maxaa ka xiga waxa ka xiga juhdi dadaal iyo ku dhiirasho iyo markasta inaad ahaatid qof nolosha hadaf ama gool kale haddaba qof kasta oo shirkaddan ku soo biira juhdi badan geliya waxa uu ka samaynayaa dhaqaale aan xad lahayn bilowga u horeeya maxaa laga baahan yahay haddaba waa inaad iibsato hal box ama hal xidhmo ama ka badan sidaad awoodo oo aad adiguna aad sii iibiso taasi waa bilowga qofka cusub si ay shirkadda ku aaminto xilliyada dambe waa muhiim inaad bilowga u horeeya aad iibsato hal box ama hal xidhmo si alaabta dambe ay shirkaddu ay ku aaminto aad u suuqayso alaabteeda waana inaad qaadato tababar ay ku siinayso managerada Soomaaliyeed ee Saadiya Xirsi ee degan dalka Mareykanka kuna tababaraysa qaabka aad u shaqaysan lahayd sidaad u iibin lahayd alaabta ama badeecooyinka shirkaddan ay soo saarto meel kasta oo caalamka ka nooshahay ayaad ka shaqaysan kartaa shirkaddan waxay xafiisyo ku leedahay 170 wadan oo caalamka alaabta u horeysa gurigaaga ayaa lagu keenayaa shirkaddan waa shirkad Mareykan waana shirkadda afraad ugu weyn waddankaasi Mareykanka ee soo saarta agabka caafimaadka iyo herbalka haddaba si aad shirkaddan ugu biirto alaabteedana aad u siibiso fadlan wac manager Saadiya Xirsi waa nambarkan WhatsApp ee shashada ku qoran